shirkani maanta ka furmay magaalada Istanbul ee diiradda lagu saaraya cadaaladda iyo garsoorka dalalka adduunka ayaa waxaa daahfuray madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Dalal gaaraya 100 dal iyo waliba sharciyaqaano ayaa shirkani lagu marti qaaday. Dalka Soomaaliya shirkani waxa uu matalayay wafdi uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajira, waxaana wafdigani ka mid ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, xeeraalyaha guud ee qaranka, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed. madaxweynaha waddanka Turkiga Mas'ud Erdogan oo shirkani khudbad dheer ka jeediyay waxa uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in dalalka dunida ay shacabkooda ay u sameeyaan nidaam ku salaysan cadaaladda. waxuna si gaar ah u soo hadal qaaday dalal ay ka mid yihiin Masar, Afghanistan iyo waliba Soomaaliya. madaxweyne Erdogan mar uu ka hadlayay xaalka dalka Soomaaliya iyo waliba sida dalalka caalamka ay u hagreen dalka Soomaaliya ayaa waxa uu yiri İşte yıllardır Somali'nin terörden çektiği ortada. Yani Somali kendine gelemiyor. Bakın Somali'de dünyanın devlerinin büyükelçilik binası yok ya. Soomaaliya sanado badan waxay ahayd goob gabaad u hargagixisada, balse maanta isbedel ayaa ka muuqda. dowladaha caalamka wax safaaradaha kuma lahan gudaha Soomaaliya, balse annagu waxaan ku leenahay safaaradeena ugu weyn caalamka. xiriirka aynu la leenahay Soomaalida waa mid aad u sareeya, waana iska warhaynaa. waxaan rajaynaynaa in xiriirkaasi uu noqdo mid qoto dheer oo Soomaaliya iyo Turkiga ay wax badan ay kala faa'iidaan. bal u fiirso, Mareykanka iyo Ingiriiska safaaradahooda waxay ku yaalaan xayndaab ku dhex yaala garoonka diyaaradaha Muqdisho. anagu teenu bartamaha magaalada ayay ku taalaa, adeegyo ayay bixisaa. waxa taasi dheer garoonkaasi ay ku yaalaan safaaradahaasi annagu ayaa dhisnay. kuwii dhisay way mahadsan yihiin. howlo kale oo wanaagsan waan wadnaa. Soomaaliyana waa ay socon doontaa. Canımızın yanmadı, kanımızın. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya Ibrahim Idle Saleebaan ayaa TV-ga Universal uga warbixiyay ajandaha sida gaarka ah looga hadlay furitaanka shirkan. waa shir weyn ballaaran oo ka soo qayb galeen ummado fara badan oo ugu yaraan 40 dawladood ay ka soo qayb galeen, ayna ka soo qayb galeen heerar kala duwan oo mid siyaasadeed iyo mid garsoorba leh oo matalayay wasiirada cadaaladda, gudoomiyaasha maxkamadaha sare, xeeraalyaasha dhammaantood ay ka soo qayb galeen. wuxuu ahaa shir la isku weydaarsanayay khibradaha iyo way aragnimada ummad waliba ay leedahay xagga arrimaha shuruucda iyo cadaaladda iyo maamulka hay'adaha cadaaladda iyo horumarintooda. dowladda federaaliga Soomaaliya ayaa shirkan waxay ku soo bandhigtay heerka cadaaladda ee dalka uu marayo, caqabadaha hortaagan cadaaladda dalka, iyadoo aynu ogsoonahay in cadaaladda dalka Soomaaliya ay marayso halka ugu hooseyso. Axmed Cali Daahir waa xeeraalyaha guud ee qaranka ee dowladda Soomaaliya. dhinaca Soomaaliya wafdigaad ka garan kartaan culayskooda. waxaa muhiim noo ahaa in aan soo bandhigno qawaaniinteena iyo caqabadaha jira iyo taxadiyaalka iyo challengeska waddanka ka jira. aad baan u soo bandhignay runtii, waana in badan oo ka mid ah madaxdii qaranka, madaxdii aan kulanayna arrimahaas fiican baan uga wada hadalnay.